muddo 10 cisho ka badan ayaa qaboojiyaha cisbitaalka guud ee magaalada Burco waxa ku jira meydka inan yar oo daadeeda lagu sheegay 9 jir oo lagu magacaabo Xaliime Cabdirasaaq Cabdilaahi Salaad taasoo la sheegay inay u dhimatay dhaawac ka soo gaadhay Kufsi loo geystay ilanta yar ayaa la sheegay in laga soo qaaday dhinaca magaalada Gaalkacyo ee maamulka Puntland si loogu daweeyo magaalada Burco kadibna dhaqaatiirtii loo geeyay ayaa sheegay in inanta yar la kufsaday waxaana loo gudbiyay cisbitaalka guud ee magaalada Burco halkaas oo ay ku geeriyootay meydkeedina uu ku jiro qaboojiyaha cisbitaalka guud ee magaalada Burco agaasimaha cisbitaalka guud ee magaalada Burco Cabdikariin Hayaan Maxamuud oo aanu xiriir la sameynay waxna ka weydiinay arintan ayaa Saab TV u xaqiijiyay in meydka inantaasi ku jiro qaboojiyaha cisbitaalka arintuna ay la xiriirdo Kufsi loo geystay isla markaana dhaqaatiirtu ay baadhitaan ku sameeyeen wixii ka soo baxana ay burito u gudbin doonaan hay'adaha shaqada ku leh Cabdikariin Abshir Nuur iyo Axmed Salaad Nuur Jaamac oo ah ehelada inantan yar oo Burco soo gaaray kana soo kicitimo dhinaca magaalada Muqdisho ayaa ka warbixiyay arintan waxaana kamid ah hadaladoodii taariikhdu markay ahayd 16kii bishii 2018 ayaa dhacda foolxun naloo soo sheegay dhacdadaas oo ah anagoo magaalada Muqdisho joogna ayaa waxa la yiri meyd baa in yaala waa soo kacna maalintii Sabtiga habeenkeedii subaxdeeda markay tahay 2 baa waxaan nimid magaalada Hargeysa ka bacdi waa ka soo tagnay waxaan nimid magaalada Burco 4tii habeenimo dhacdadii markaan la kulanay adigu ilaa hadda waxaan joognaa magaalada 12 bari meydkaasna wuxuu noo yaalaa 12 bari dawladda Soomaaliland marka si wanaag iyo sharaf leh noo soo dhaweysay baaritaankeeda ku wada anaha waa ku qanacsanahay waxay sida ku wado waxaan rabnaa maadaama Soomaaliland meyd noo yaalo waxaan rabnaa kiiskaas in loo soo dedejiyo magaalada caasimadda ee Muqdisho maalin anagoo joogna markay tahay 8 saac oo maalmeed noo soo dhacay warar xun oo wararkaasi yihiin magaalada Burco ayay ka soo yeereen nooga soo yeereen maadaama ay nooga soo yeereen waxaan niri maxaa jira waxa la yiri gabar baa taala magaalada isbitaalkeeda markaanu sidaas dadkii sii su'aalay waxa la gabadhaas Kufsiina loo sameeyay lagu sameeyay isbitaalkeena taala furjeer bayna ku jirtaa dadkii wakiilka ka ahaa si degdeg ah ugu yimaado markaanu meeshii nimid ayaan magaalada ka soo duulnay Hargeysa baabuurna diyaaradna keentay magaalada la yiraahdo Burco ayaan 4 saac habeenimo 4 saac habeenimo markaan nimidna waxa naloo sheegay in gabadhii furjeer ku jirto waagii baan noo bariyay waxaan tagnay qaybta booliskana waxay nagu wareejisay isbitaalka gabadhii inay furniture ku jirta ayaa naloo furay markaa ka bacdi Xaliimo oo laga soo qaaday iyadoo dhaawaca magaalada Gaalkacyo oo dhanka Puntland markii laga soo qaadana waxaa la keenay magaalada oo dhakhtar ahaan bay waxa loo keenay magaalada Burco markii la keenayna gabadhaasi waxa weeye dhaqaatiirta waxay keeneen isbitaalka Burco markii la keenana gabadhii halkaas ay ku geeriyootay dhaqaatiirtu waxay ka warbixisay gabadhaasi Kufsi qarool caadi loo geystay nabarada hooyadeed ka muuqda in lagu bahdili jiray in ay qariso falka dhacay in ay qariso in lagu bahdili jiray oo ay qariso noocaas ayaa nabaradaasna loogu geystay Saciid Maxamed Faarax Dugulle oo ku xiran saldhigga magaalada Burco oo ahaa gabadha ninkeedii Farxiye ninkeedii ahaan jiray ilmahaasna uu dhalay nin kale oo hadda ka hor ay fureen oo adeer anu ahay oo la yiraahdo Cabdulaahi Salaad Nuur waxaan codsanaynaa sharciga islaamka iyo sharciga maadiga iyo sharciga Soomaaliland in ninka sharciga nala horkeeno si degdegna noo waafajiyo meydkaasna noo nasteexeeyo godka loo galiyo Farxiye Maxamed Salaad oo ah hooyada dhashay inanta dhimatay isla markaana uu qabay ninka loo haysto Kufsigan oo iyada lafteeda ay ku yaalaan nabaro uu geystay ninkaasi ayaa u warantay Saab TV kana warbixisay wixii dhacay bismillaah aniga Farxiye Maxamed Salaad halkan waxaan ka cadeynayaa in gabar yar aan dhalay iga geeriyootay isbitaalka Burco gabadhaas aan u keenay kaadida oo haysa goortii la keenay dhakhtarkana wuxuu yiri waxa ku yaala Kufsi dhaqaatiirtuna waxay cadeysay Kufsi inay u geeriyootay dawladda Soomaaliland waxaan ka codsanayaa falka cidii geysatay in sharciga hor keento barnaamijka gobolka Togdheer Maxamed Yahay oo iyagu maalmihii u dambeysay arrimaha la socday si weyn uga howlgalay ayaa Saab TV u sheegay inuu xidhan yahay ninkii loo haystay Kufsigan inuu u geystay inanta yar isla markaana baadhitaankii socdo marka uu dhamaadana la horgeyn doono hay'adaha sharciga leh marka hore Saab TV iyo Qiso waa salaamantiin haddaan hawshan u dub ugu noqdo mucjiso aynaan arag
ama ku yarba adduunka maqalkeedu ayaa burca ay la soo galeen niman gaalkacay ka yimi inay yaro 9 jira ayaa sida dhaqaatiirtu cadeeyeen faraxman ku sameeyeen hooyadeed qabay ninka wuxuu keenay halkan asigoo soo fogeynaya malaadeese qaba meydkeeda inanto sakaraado ay la socoto hooyadeed tada dhakhtarka daarul xanaan buu geeyay daarul xanaan markay baadheen waxay ogaadeen in kaliyu istaageen oo inanta galma lagu sameeyay iyo dil markii dambe ka dambeeyay oo la garaacay ay sabab u tahay xanuunkeeda in yar haddii hayeenna way geeriyootay dhaqaatiirtu waxay caddeeyeen markaa inanta ciddii dhashayna keenaan nootaayuu tegey wuxuu yidhi anigaa dhalay oo aabbo ah dhaqaatiirtii waxay ku qanci weyday inuu ninkaasu dhalay inanta cid ku caddaysa la kaale bay yidhaahdeen adigoo arrintiisii bay ku fashilatay imkana si ay dhiidaa gacanta ku haysayo dhaqaatiirtii meydkiina muddadaasuu yaallaa ninkiina waa xidhan yahay wixii xadhiggaa ka soo baxa ee caddayn ay keento ee maxkamadda caddayso ee si ay dhiidu caddayso ee dhaqaatiirtu caddayso ayaa meesha imanaya gabadha lafteedii uu qabay asugoo inantayna dhashay ninka kale u dhashay ayada lafteedii waa la wareysay ayada lafteedu wax badan bay dhaqaajisay inuu dhibta ninkeedu leeyahay ayada lafteedina uu dilay ayaa caddaysay laakiin waxa marka maxkamadda la geeyo ayuunbay soo baxayaan oo caddayntu imanaysaa dembiyada waxna waa wax laga soo galay laynoola yimi oo inanta kufsigeedii wixii halka laynoola yimi waxna waa wax halkan burco iyo Soomaaliland dhexdeeda laga galay oo ah mataqaana inanta ana dhalidan uu nootaayada ku sameeyay uu doonayay inuu ku usxabaalo taasuna waa dambi kale lafteedu marka labada arrimood ayaa meesha isbarkan Qiso Axmed Digaale Saab TV Burco